nin la yiraahdo Dr. Ali al-Umari yaa wuxuu ka sheekeeyay inuu Sacuudiga ku arkay islaan waayeela islaanta waayeesha waxa ku dhacay kansar dhiiga raaca waxa lagu yiri intaas aad noolaanaysaa intaana sariir baad saarnaanaysaa isaad u noolaan lahayd u noolow gabadh baa marka shaqaalaha waxa looga keenay hooyadaasi waxay lahayd dad ku hamiya iyo dad u dadaala iyo dad ay dhashay oo fiican oo xoolo haysta jiray oo baariyaalo ah waxay tiri qof shaqaalaha oo ii adeega hal ii keeno waliba qof muslina hal ii keeno gabadh baa shaqaalaha baa waxa laga keenay Indonesia gabadhii shaqaalaha Indonesia markii laga keenay hooyadaasi u shaqaynaysay hooyada markay u shaqaynaysay yaa gabadhu way ag fududahay waa qof barakaysan waa qof cibaado badan waa qof dhag wadan waa qof wax dhagaysta waa qof wax qaban kara waa qof gaariya waa qof wanaagsan ceeb lahayn laakiin marun baa intay musqusha gasho iyo musqusha ku raagtaa inay ka soo bixin waalidkana waa taqaanaayo de markuu qof tabar daran oo sariir saaran yahay heblaayo idaas iska jeceshahay oo marba inay soo ag istaagtay rabtaa heblaayo bay dhihi oo markaas ay marka musqusha ku maqnaanaysaa way weydiisay waxay ku tiri hooyo ceeb kale ma lihide laakiin anigu kuma hayn karo musqusha aad ku daahaysaa maxay tahay waxay tiri inaan ku sheega ma rabine laakiin haddii aad dib ka dhigatay waan ku sheegi musqusha aan ku daahayo waxay tiri hooyo iyadoo umula wadankeedii ka soo tagtay baana aniga oo umulay oo qof muslina oo xora oo sharaf leh dantu waxay i baday inta fursadan yareed haysan la ii sheegay inaan caruurtaydii u soo shaqo tagay oo odaygii kaga imid ilmahan umulay isagoona fartan bixin dabadeedna waxay tiri saacadan musqusha ku maqanahay caanihii baan iska soo lisaa hooy inta raalli ah oo dul qaado adaana ku shaqaynaya waxay tiri baahiba halka ka keentay oo xadka ku gaarsiisay waxay tiri ha wiilasheediiba isugu yeedhay waxay tiri anigu ducadoon baana taariikhdan dhimanayna waaba la ii sheegay in dhowr bilood noolaanayo si ay sadaqa iigu noqoto qabrigayga qofkan dumarka ama aragtaa qof shaqaalaha oo kale ii keena iyadana iga fasaxa laakiin maxaad ku fasaxaysaan 2 sano biilkeedii oo loo kordhiyay baa lagu siinayaa meeshay u dhalatay iyadoo joogta maantana dadka ay danaynaysa inay hadiyad u qaado oo dhan waxay rabtaa ha loo soo iibiyo gurigeedii waxay uga baahnayd oo dhan ha loo soo iibiyo tigidhkana ha loo soo jaro ha la soo arad bixiyo 2 sano kadib caqdigaanu kula galay ilmahaaga markaad soo guriso wuu ku shaqaynayaa markaa noo soo shaqo tag ku dhahabay tiri hooyadaasi faacil alkhayr kaas ay la timid ficil alkhayr ka markay samaysay imisay gabadha muslimadihi marka qalbigeeda suruur galay oo ay faraxday oo ay weynaatay oo ay kala badbadatay markii la yiri 2 sano mushaharkaaga gurigaagii baad ku qaadan ilmahaagina waad nuujinaysaa waxaad u baahan tahay inaad noo sheeg odaygaaga maxaad u gadi lahayd telefoon noocaasa hebel maxaad u gadi lahayd dhar caynkaasa eedada maxaad u gadi lahayd dhar caynkaasa kulli waa loo soo gaday lacagtaana faraqabsi ka dhigaa la yiri bisha kowdeeda labadeeda maahe bil walba lacagteeda akoonka ka qaadaa la yiri gabadhii way tagtay islaantii sariirta iska jiiftay muddo way soo ladnaatay ma fadhiisan jirin way soo fadhiisatay talaabo qaad bay bilowday way ladnaatay way roonaatay iyadii baaba inay adeegata bilowday maalintii dambe dhakhtarkii la geeyay wuxuu ku yiri war islaantan ma ahe walaasheed bay ahayd tii saradaanka qabtay tan weligeed saradaan kuma dhicine tii saradaanka qabtay noo keena bay ku yiraahdeen dhakhaatiirtii way dadaaleen oo wuxuu Dr. Ali al-Umari way dadaaleen caruurteedii oo meelo badan bay dhiigeedii u direen meel walbana waxa la soo diray inaana islaanta weligeed kansar ku dhicin hadda inay qabtay iska daaya ilaa markii dambe dhiigeedii Jarmalka loo diray oo ay noqotay meeshii u dambeysay ee konfaynka ka keentay inaan gabadhaas ama islaanta weligeed una kansar ku dhicin dhiigeeda xitaa sadaqadu marka tasnac al-ajaa'ib sadaqadu tasnac al-ajaa'ib nabi muhammad wuxuu yiri ku daweeya mardaakum sadaqadiina ku daweeya buu nabigu kaleey salaatu wasalaam wa xaqiiqan maanta haynoon tijaabinay oo la arkay oo dadkii la baasharay culimadaha qoreen ay noo sheegeen way waxaynu marka leenahay ramadaanku futuuxaad badan way ramadaanku waa bishii sadaqada way ramadaanku waa bishii cibaadada way ramadaanku waa bishii sabirka way ramadaanku yuuna inaga lumin oo yaanu fursadahan haysanaa inaga fasaadin waxaan ku gabagabaynayaa nabi muhammad waxa loo sheegay kaleey salaatu wasalaam 2 gabdhood gabadh baa looga sheekeeyay waxa la yiraahdaa heblaayo waxbay sadaqaysataa rasuulka ilaahayo waana waxa weeye maal fara badan bay leedahay wax badanna way bixisaa wax badanna way cibaadaysataa wax badanna way samaysaa laakiin tu'di jaaraha waa akhlaaq xumadii way tu'di jaaraha jiiraankeeda way dhibtaa wuxuu yiri waxba uma tarin waxay bixinayso fadliga dheeraadka iyo xoolaheeda ay bixinayso sadaqadeeda soonkeeda tukashadeeda wax alla waxa u tartay ma jira naartay galaysaa u sheega buuri saxaabadii waxay moodeen inuuna nabigu fahmin bacida loo sheegay waxa la yiri yaa rasuulallah heblaayaan ku sheeg
gabadhaanu ka warramaynaa waa heblaayo waa tii ataqiinna khayrka badnayd weeye hal ceeb ay leedahay oo dariskay dhibtaa bas wuxuu yidhi u sheega ahlu naar weeye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam tu kalaa looga sheekeeyey waxaa la yidhi xoolo badanba ma haysato waxay sadaqaysa ma haysato waxay dadka siisa ma haysato waxay wax tarta ma haysato waxba wax ma bixiso cibaadadana inta faradka abay samaysaa laakiin dadka oo dhani way ka nabad galaan wuxuu yidhi akhlaaq wanaageeday jannada ku gashay u bishaareeya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa darajatu saa'imi alqaa'im inaad ku gaadho akhlaaq macaankaaga waxaa laga yaabaa adoo aad u cibaado badan laakiin akhlaaq xumada iyo mucaamala xumada kaa soo baxaysa in ay in badan camalkaaga hoos u dhigto qayrkaa kaa reebto yaanay afkaagu yuuna qayrkaa kaa reebin dhibkaagu yaanu ku dhaxalsiinin naar ilaahay ka cabso addoommada si wanaagsan ula dhaqan waxaad aragtaa cibaadaadka marka laynooga warramayo cibaadaadka shacaa'iriga ah waxaa laynagaga xidhay mar walba cibaadaad camali ah mar walba cibaada camaliya lagu xidhay cibaada shacaa'iriya oo waxaa la yidhi ina asalaata tanha can alfaxshaa'i waalmunkar fuxshigu waa mucaamala waa dadka inaadan qurun la soo hor istaagin wey salaadiina waa shicaar oo waa wax la arki kara weeye oo waa cibaada muuqato oo shacaa'iriya wey cibaadadii shacaa'iriga ahayd tii mucaamalaadka ahayd baa lagu xidhay salaadaadii la aqbali mahayo oo lama aqbalin haddayna fuxshigii iyo xaaraanta kaa reebin soonkaagii la aqbali mahayo oo ilaahay agti waxba ka goyn mahayo hadduuna kaa reebin man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة an yadaca dacaamahu wa sharaabah haddaadan maxaanku dhahdaayay hadallada xun iyo qurunka iyo fisqiga iyo waxyaabaha xun ee daawanaysa iyo waxyaabaha xun ee odhanaysa iyo haddaanu kaa reebin soonkaagi ilahay agti ajir kaga heli maysid haddii maxaanku dhaha wanaagga aad samaynayso uu riyaa iyo istus iyo tacaamul xumo kaa soo galana khayrkaad samaynaysa waxba faa'iidaa ka heli maysid waxaynu leenahay addaalu cala alkhayri sidii inuu caadada ahayd ka faacilihi duruusun wa cibar iyo axkaamu siyaam baynu ka warrami doonaa ilaaha idamkiis addaalu cala alkhayri ka faacilihi buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam amar ma aha laakiin waa dalab waxaan rajaynaynaa qof walba oo muslim oo shariidkaas soo gaadhay inuu nashriyo si ay nafcigu u caamu noqdo oo dadka muslimiinta o dhan uga faa'idaystaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah